kaba soo qaad daawada in subax ka mid ah subaxyada in aad sida caadada ku ahaydba xilli hore aad ka soo toostay gurigaada, isdiyaarisay, kadibna aad u soo dhaqaaqday goobtii aad ka shaqaynaysay. Si kadis ah adigoo shaqadaada ku jira ayaa maamulahaaga kuu sheegay in shaqada laga ceeriyay sabab la'aan. Kuna darso waxaad tahay qofka kaliya ee u dhaqdhaqaaqa qoyskiina, mana fududo in aad si sahal ah ku hesho shaqo kale. Haddaba qiyaas sidee noqon lahaa dareenkaaga? Maxaad ku qiyaasi lahayd heerka rajadaada? Sidoo kale maxaa kula gudboon oo tallaabo ah inaad qaadid? Sheekadan kooban ee aan horey uga soo sheekeynay waxay ku dhacday nin u dhashay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Wallace Johnson. Wuxuu ahaa mid ka shaqeeya shaqo iska yar oo ah warshad yar oo qaabaysa alwaaxda. Inta ugu badan dhalinyaronimadiisa halkan ayuu ku qaatay. Wallace wuxuu ahaa mid ku faraxsan ama ku qanacsan shaqadan ilaa uu gaaray da'da 40 sano. Maalin ayaa si kadis ah isagoo shaqadiisa ku jira ayaa maamulihiisa ku wargeliyay in laga joojiyay shaqada, isla markaana uu mar dambe ku soo laaban goobtan. Wallace wuxuu aad uga xumaaday arrinkan, wuxuuna dareemay in juhdigii uu muddada dheer bixinayay uu yahay hal bacaad lagu lisay. Waxaana xirmay isha kaliya ee uu biilka ka helayay qoyskiisa. Gurigiisa ayuu iskaga laabtay. Fikir dheer kadib wuxuu go'aansaday inuu galo mihnada guryo dhisida, oo ah inuu guryo dhiso kadibna sii iibiyo. Haddaba wuxuu rahan u dhigtay gurigiisa si uu u helo lacag uu ku dhiso guryaha. Wallace waxaa u suura gashay inuu dhiso 2 guri oo yaryar kadibna uu ku iibiyo qiimo fiican. Arrinkan ayuu sii joogteeyay. Waxaa batay tirada mashaariicdiisa ilaa uu caan ka noqday deegaankiisa. Heer ayuu ka gaaray dhisida guryaha, isagoo dhisay hoteelo, goobo caafimaad oo ku kala yaala magaalooyin kala duwan. Wuxuu dhisay hoteelka caalamiga ah ee loo yaqaano Holiday Inn, oo ah silsilad hoteelo ah oo ku kala yaala gobollo kala duwan. 5 sano kadib Wallace wuxuu noqday nin milyaneer ah. Qoraahyadii ugu caansanaa ee ninkan laga hayo waxaa ka mid ahaa inuu yiri, haddii aan arki lahaa maamulahaygii shaqada iga soo ceeriyay waan u mahad celin lahaa.